taliyaha qaybta lixdamaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Maxamed Sheikh Cabdullaahi Xirow ayaa tababarka u soo xiray cutubyadan ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo muddo 2 bilood ah tababarkan uga socday dugsiga tababarka ciidanka dawladda Ingiriiska ay ku leedahay magaalada Baydhabo waxaana tababarkan oo muddo socday bixinayay saraakiil ka tirsan dawladda Ingiriiska waxaana lagu wadaa ciidankan inay qayb ka noqdaan howlgallada lagu xaqiijinayo amniga dalka gaar ahaan gobolada Koonfur Galbeed oo xilligan wadooyinkooda ay go'doomiyeen maleeshiyadka Al-Shabaab xiritaanka tababarka waxaa sidoo kale ka soo qayb galay wasaaradaha amniga warfaafinta tamarta iyo kheyraadka biyaha saraakiil ka kala tirsan ciidamada booliska iyo militariga iyo marti sharaf kale cutubyadan maanta tababarka loo soo xiray ayaa waxaa goobta ay ku soo bandhigeen habka loo fuliyo howlgallada iyo sida la iskaga difaaco weerarada gaadmada ay soo qaadaan cadowga munaasabada xiritaanka tababarka waxaa ugu horeyn ka hadlay saraakiil ka tirsan dawladda UK waxaana hambalyo u direen ciidanka maanta tababarka loo soo xiray iyagoona sheegay in mar walba diyaar u yihiin in dawladda Soomaaliya ay ka caawiyaan tababarada ciidanka iyo waliba tayeentooda. You will fight better in those teams that you have built here and good luck for the future. Maysi rajay mustaqbal wanaagsan team ahaantiina oo antan ku bateen. And now some thank yous. Waa mahadsantii. Taliyaha qaybta lixdamaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Maxamed Sheikh Cabdullaahi Xirow ayaa u mahadceliyay safaaradda dawladda Ingiriiska ay ku leedahay dalka Soomaaliya sida mar walba ay u garab taagan tahay dawladda Soomaaliya waxaana uu kula dardaarmay ciidanka tababarka ka faa'iideystay inay gaarsiiyaan ciidamada kale aan fursadda u helin ayna u diyaar garoobaan sidii cadowga looga difaaci lahaa deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya qiimaha geekani aan arday ku qeyb gala xiritaanka horintii lamaad oo qaybta lixdamaad oo ku najaxday tababarkii muddada 2 bilood hawadeen eedan faraxsan may eed arday kama hadnaqay saraakiishi iyo madaxda UK suurta galiyay ani arday ciidamadan quruxda badan horteen surun geek ku najaxeen tababarkii casriga iyo siyan markii aan haynayada ciidamada hortay surun way nasiib in haleena aniyo qaadan tababar casri ah oo waqti gaaban ah oo 2 bilood ama 8 bilood ma 8 week ah ani arday ka aflahayn geekana awood leeyin ani arday cadow kiisho meel kastan sadan waan burburiyaan sidii waqtiyo inta galaan ilaa hadana isku mad aan hayna tiraajishay saaq warbaahinta qaranka Soomaaliya